ومالك 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 maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waa salaam saaxiibayaal kusoo dhawaada Somali Community College. Cashirkeenan maanta wuxuu ku saabsan yahay vocabulary words, erayo. Sidoo kale cashirka wuxuu noo noqon doonaa cashir oo differentiate ah oo lagu maxay kala duwan yihiin erayadan aan ku qoray qalinka greenka speaker, lecture, communicator, talker, conversationalist maxay kala duwan yihiin. Okay, the speaker haddaan soo qaadno. Speaker, right now I am speaking to you. Anaa speaker-ga waan hadlaya. Sidoo kale I am a lecturer. Cashir aan bixinaya. Communicator waan hadlaya sidoo kale I am communicating. Talker, conversationalist. Sidoo kale maxay ku kala duwan yihiin ayaan insha Allah cashirkeena ku baran doonaa hadduu Ilaahay ka raadno. Speaker, lecturer, communicator, talker, conversationalist. These are all words. Kuwana waa erayo for a person oo qof ah who talks oo hadlay or who is talking ama hadda hadlayo especially gaar ahaan in a particular way xaalad gaar ah xaalad specific way ah. Okay, speaker aan soo qaadano. Speaker maxaa waaye weligaa ma maqasharaada speaker-ga iga hadlowsan telefoonka speaker-ga iga hadlowsan ama who is the parliament speaker of parliament. Okay, speaker a person who is waa qof or was speaking hadlayo a person who speaks in a particular language. Sidoo kale speaker waa a person waa qof who is markaas ama was speaking macnaha qof hadlaya ama qof hadlay speaker. Sidoo kale speaker waxaa waaye a person who speak qof ku hadlo in a particular language in a particular language in a specific language. For example, Chinese speaker qof luqad gaar ku hadla ama tusaale ahaan meel oo waddankiisa u badnayn buu joogaa waxaa la yidhaha Chinese speakers, Somali speakers, English speakers, Spanish speakers. Okay, a person sidoo kale waxaa la dhahaa a person who makes a speech qof khudbad jeedinayo ayaa la yidhahdaa speaker. Qof khudbad jeedinayo oo meel ka hadlayo masraca ayaa la yidhahdaa speaker. Marka speaker-ka waa sidaas. Tusaale ahaan example, I look around geesaha ayaan fiiriyay to see saan u arko who the speaker was qofku yahay speaker-ka. Marka meeshan waxaa kaaga baxayo speaker-ka waa qof hadal jeedinayo speech. Sidoo kale example-ka labaad, a fluent Arabic speaker. A fluent means confident macnaha qof luqadda ku fiican. Marka waxaa la qofka luqadda ku hadla a fluent Arabic speaker, a fluent English speaker, Spanish speaker. Qofka luqadda ku hadlan waxaa la yidhahdaa speaker iyo luqadiisa loo raacana Arabic speaker. Sidoo kale qof oo khudbad soo jeediya ama meel ka hadlayan waxaa la yidhahdaa speaker. Example-ka saddexaad, the keynotes. Qof markuu khudbad jeedinayo buugga qalimay dadka haystaan waxyaalaha oo mudnaanta mudan erayada mudnaanta mudan iyo ayaa lagu qoraa. Tusaale ahaan weriyaasha ayaa badanaa isticmaala marka madaxweynayaasha conference qabanayaan erayada khaaska ay ka qorayaan hadhow ayaa TV-ga si live loogu sii daynaya. Marka waxaa la yidhahdaa the keynote speaker at the conference. Erayga keynote macnaha the very important waaye. Erayada note-ka ugu fiicnaa uu ku hadlay speaker at the conference. Marka meeshan speaker kaga baxayo qof shir jira qabta conference qabta inay tahay waa hadla sorry. Okay, lecturer maxaa isna. Lecturer a person who gives waa qof bixinayo a lecture cashir maxay tahay waxaas a talk uu la hadlaya ama waa hadal to a group koox of a people oo dad ah to teach them inuu baro about a particular subject maado gaar ah. Hadda aniga right now I'm speaking I'm giving out a lecture
I'm giving you a lecture cashar ayaan bixinaya casharka aan bixinayana dadka oo dhan ma wada bixinaya dadka Soomaaliya ku hadlayaan cashar u bixinaya so a group of people to teach them about a particular subject maxaa waaye lectureka hal mar macquul ma inuu laba cashar saddex cashar hal mar bixiyo laakiin waa inaad specific subject inaad bixiso hadda right now I'm giving lecture about English language marka lecturer waxaa waaye qof speaker waan soo hadalna waa soo fahanteen lecturer waxaa waaye qof cashar bixinayo casharkaasoo cashar kooban ah maado ah dadkaasoo dad kooban ayagana ah oo group ah laakiin haddii group sheekada dhaafto oo magaalo aad la hadlayso you are not lecturing you are speaker ama TV baad la hadlaysaa magaalo dhan baad la hadlaysaa you are not lecturing lecture marka waxaa waaye waa koox yar group oo khaas ku ah oo wax khaas ah baraysa waaye okay communicator weligaa ciyaaraha marka daawanayso communicator ma maqashay hoos lagu soo qoray TV kuwa ka faallada ciyaaraha waxaa a person who is able waa qof awoodo to describe inuu qeexo their ideas fikradahooda and feelings dareenkooda clearly si cad to others dadka kale inuu si cad ugu qeexo communicator macnaha qof maxaa waaye hawlkar ahoo meeshuu ka hadlaan laga daba hadlayn ayaa communicator macnaha qof hadal ilaahay u dhiibi waayo oo ilaahay Soomaalida waxay dhahdaa aftahan yes communicator aftahan waa a person who is able qof awoodo to describe inuu qeexo their ideas fikradahooda and feelings iyo dareenkooda clearly si toos ah oo cad to others dadka kale u qeexo example the ideal or the perfect candidate musharaxa candidate oo perfect macnaha oo idealka ah will an effective communicator waxaa waaye effective communicator saameyn la waaye ideal macnaheedu waxaa waaye waa perfect candidate-na waxaa waaye qof oo meel u taagan musharax waxaas ah will be an effective communicator waxaa waaye macnaha dood marka la qabanayo ninka communicator-ga amba noqon doona effective hadalkiisa talka ayadana maxay tahay marka talka a person who talks waa qof hadlay in a particular way si khaas u hadlay or ama who talks u hadlay a lot wax badan galaas weligaa la dhahay maarta ardada qaar lahayo talkative dadka hadalka badan talkative ka la dhahaa tusaale ahaan example is a very persuasive talker persuasive waxaan soo marnay dadka shukaansada oo dadka xodxoto oo hadalka intay hadalka badiyaan qofka meel uu ujeedin buu soo wuxuu jeclaysiinaya wax kalo adoo ra'yi kala qaba ayaa ra'yi kale lagu shubaya marka wuxuu yidhi is a very persuasive talker marka qof persuasive talker waa uu she is a great talker iyada waa talker hadal she is great talker macnaha waa great waxaana weyn waa hadalyahan weyn waaye macnaha she is a great talker waa iyada waa hadalyahan weyn waaye meesha ka hadasho lagama daba hadli karo macnaha she talks a lot wax badan bay hadashaa waa dadka hadalka dalmo ayaa la yidhahdaa sidoo kale talkative conversationalist a person waa qof who is good ku fiican at the talking hadalka to others dadka kale especially gaar ahaan in a formal way si oo macnaha oo reer magaalnimo ah macnaha waa qof conversationalist oo hadalka dhadhicina dadka qaar ma arkin meelaha ka hadlaan khudbadahooda ku soconayaan macnaha dadna qaar ayagoo professor ah khudbad u jeediyo laga yaabo inay dhadhan lahayn marka kuwaas hadalka si fiican u dhigayo oo hadal ku fiican oo hadda meelaha qaar loo kiraysto ayaa la yidhahdaa conversationalist okay asxaabay intaan waxaan u malaynaa waa ilaa 1 2 3 4 5 eray waayo laakiin waa isku wada macno dhow yihiin inaad wax ka fahanteen waan rajaynayaa cashiro oo vocabulary words insha Allah hadda kadib waan soo bashanaynaa bal adinkana 4 eray intaad meel ku qortaan bal search gareeya google ka raadiya dictionary ka raadiya waxay yihiin qaybta commentiga waxaad ka fahantay iyo researchka baxtiga aad kasoo heshay qaybta commentiga hoose igula wadaag luqadda Englishka sideedaba macalinka 30% ayuu bixiyaa 70% ardayga dushiisa ay ahaatay marka wax baranayso isku day inaad dadaal muujiso oo macalinka wuxuu ku sheegay bas aadan macnaha aadan ku adkaanin oo qof oo wax soo raadiya aad noqoto aad ayaan salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu